In 1977, sanadkii 1977 quwadaha waaweyn ee adduunku waxa ay u soo weeciyeen aragtidooda geeska Afrika kadib isbedel ku yimid nidaamyadii halkan ka talinayay waxaana sidoo kale isbedelay xulafadoodii Ethiopia boqortooyadii ayaa la cayriyay bedelkeeda waxa xukun ka yimid markasi madba'a shuuciyada aaminsan midowga Sofiyeetku waxa uu helay saaxiib ama xaliif cusub waana Mengistu Haile Mariam markuu xilka la wareegay Mengistu waxa uu yiri xukunka waxa aan ku imid taageero aan ka helay xisbiga shaqaalaha waxaan ka dabaaldegaynaa dhammaan deegaanada Ethiopia madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Jim Carter ayaa yiri midowga Sofiyeeti marka ay soo caga dhigteen Ethiopia si ay u caawiso Mengistu taasi waxaan u aragnay inay halis iyo khatar ku tahay xasiloonida iyo deganaanshaha Afrika Sibignu Brzezinski oo ahaa la taliyaha dhinaca amniga ee madaxweynihii Mareykanka waxa uu yiri The Soviets at that time were proclaiming over and over again xilligaas midowga Sofiyeeti waxa ay sheeganayeen oo ku celcelinayeen inay guulo soo hoyeen sida wax u socdaan ay aad u daneynaysay midowga Sofiyeetku waxay sheeganayeen inay hananayaan dhulal istiraatiiji ah midowga Sofiyeetna uu dabada ka riixayo dhaqyada xornimadoonka ee ka curtay Afrika maamulka cusub ee Ethiopia waa uu ka hor yimid oo ka baxay garabkii Mareykanka Paul Hens oo ka tirsan guddiga amniga ee Mareykanku waxa uu yiri Mengistu waxa uu cayriyay Mareykanka Ethiopia joogay intoodii badnayd waxa uu joojiyay heshiiskii caawimaadda Mareykanku u fidinayay Ethiopia dawladda dariska la Ethiopia ee Soomaaliya waxay xulafo la ahayd midowga Sofiyeetka ciidanka Soomaaliya waxa uu ku hubaysnaa hub ay ka heleen midowga Sofiyeet sidoo kale Sofiyeetku xiriir waxa uu la lahaa Ethiopia Soomaalidu waxa isku dayeen inay u digarrubtaan Mareykanka Paul Hens waxa uu leeyahay waa ay yareed fursad ah in Soomaalidu ay helaan taageerada Mareykanka laakiin haddii ay muujin lahayn inay aad uga soo horjeedaan midowga Sofiyeetka waxba soo dhawaan lahaa Soomaalidu waxa ay ka soo horjeedeen xaliifkoodii midowga Sofiyeetka waxayna isku diyaariyeen dagaal ay la galaan Ethiopia madaxweyne Jim Carter waxa uu ka diiday dalabkii Soomaalida ahayd in hub lagu taageero waxa uu yiri ma ahan in Soomaaliya loo ogolaado inay guul ka gaarto dagaal oo ay ku qabsato dhulka Ethiopia waanu diidnay in Soomaaliya hub la siiyo iyadoo ay taasi jirto haddana Luulyo 1977 Soomaaliya dhul ballaaran oo loo yaqaan Ogaden ayay Ethiopia kala wareegtay horumarka ay Soomaaliya ka sameeysay dagaalka midowga Sofiyeeti waxa uu isku dayay inuu ku joojiyo dagaalka dhinaca wadada diblomaasiyadda Karen oo ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga hantiwadaaga ee midowga Sofiyeetka ayaa yiri Громыко предложил американцам midowga Sofiyeet waxay soo jeedeen in iyaga iyo Mareykanku ay ka wada qayb qaataan dhexdhexaadinta labada dhinac Mareykanka ayaa diiday iyagoo u arkay in arrintaasi ay sharciyad siinayso midowga Sofiyeetku in dhulka geeska Afrika sii joogo waxa uu intaasi raaciyay Mareykanku iyagu waxa ay isku arkaan meel kasta ay joogaan inay sharci ahaan u joogaan mudaharaad lagaga soo horjeeda midowga Sofiyeetka ayaa ka dhacay Soomaaliya kadibna dawladda ayaa amartay xubnaha la taliyayaasha iyo qoysaskooda midowga Sofiyeetku ay isaga baxaan Soomaaliya dhammaan taageerada midowga Sofiyeetka waxa loo wareejiyay dhinaca iyo Ethiopia midowgu waxa ay guda galeen inay hub u soo daadgurayaan Ethiopia ilaa 15,000 oo ciidan Kuubaan ah waxay u soo daabuleen Ethiopia madaxweyne Fidel Castro waxa uu yiri waa howlgalka kaliya aan si toos ah ula galnay midowga Sofiyeetka inaan fulino wada shaqayntaas oo kale weligeed nama dhexmarin xataa kuwa ku saabsan Latin America xubin ka tirsan howlgalka ciidamada midowga Sofiyeetka ee Ethiopia Better waxa uu yiri кубинские войска в Эфиопии Ethiopiaanku ma lahayn awoodda ciidan ee ay ku burburin karaan ciidamada Soomaaliya waqti kooban ciidamada Kuuba oo taageero ka helaya midowga Sofiyeetku waxay awoodeen inay ciidamada Soomaaliya ka saaraan gobolka Ogaden laakiin Moscow uma ogolaan Ethiopia inay gudaha u gasho Soomaaliya waxaan ku fikirnay inaan Soomaaliya qabsano
laakiin midowga sofiyeet waa ay ku saxsaneed inaysan naga oggolaan taas maxaa yeelay waxa xumaan lahaa xidhiirka aannu la leenahay dowladaha waaweyn sida Maraykanka iyo Ingiriiska. Great Britain and others more difficult. Mengistu waxa uu dareemay guul iyo sharaf. Kuuba iyo midowga sofiyeet ayaana badbaadiyay nidaamkiisii. The Horn of Africa was not important to America. Francisca waxa uu leeyahay Amerika muhiim uma aha geeska Afrika lafahanteeda laakiin waxay halbeeg u tahay habka midowga sofiyeet ay u turjumayaan joogitaankooda iyo guulaha ay soo hooyeen. Anatoly oo ah safiirkii midowga sofiyeetka u fadhiyay Maraykanku waxa uu isna leeyahay dunida saddexaad wax kastoo aan la filayn sida aan la filayay uma dhacaan 20 sano oo khilaaf ah qofna ma xasuusto waxa uu sameeyay 44 sano ka hor Soomaaliya iyo Itoobiya waa ay dagaalameen midowga sofiyeetka ayaana u hiiliyay Itoobiya Maraykankuna kama saan lahayn inuu garab iyo gaashaan siyaasadeed ugu yaraan u noqday Itoobiyaanka 1977 mar kale waxa lagu tartamayaa hadda mandiqada gobolka geeska Afrika oo Maraykanka iyo reer barigu ay wali sida ugu hayaan hayeeshee midowga sofiyeeti meesha ma joogo Soomaaliyana waa dawlad goboleedyo kala go'an oo ay leh madaxweynayaal kala duwan oo nidaamka federaalka loo sameeyay kaas oo ilaa hadda Soomaalidu aysan isku waafaqsanayn waana gobollo kala duwan oo wali dhexdoodu aad isku haya lana aaminsan yahay in qolo kasta danaheeda gaarka ah laga dhamaysto. ma jeceshahay inaad barato quraanka kariimka ah iyo culumta shareecada ugu kaalay markaska Nuurayn online oo baro adigoo gurigaaga jooga quraanka higaada iyo culumta kale islaamka wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda